waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeenii kibis maalin nagu filan oo ay alaaba idiin soo jeediyaan hoob iyo nuur. waad salaamantihiin dhammaantiin waan idin soo dhawaynaynaa dhagaystayaasha ina dhagaysanaya gaar ahaan saaxiibadeen mar walba nala socda. walaalayaal maantay barnaamijkeena ciwaankiisa waxaan ka dhigi doonaa oo aan isla faahfaahin doonaa qorshaha ilaah. marka aayado sida alaaba barnaamijkeena uga barateen waxaa annaga mar walba aasaas noo ah inaan hadalka ilaah aan ku soo qaadano barnaamijkeena aasaas aan uga dhigno markaas kadib ayaan isla faahfaahinaynaa. maanta waxaan rabnaa inaan kusoo qaadano aayadaha ku jira buugga Yermiyaa 9:11 ilaa 13. aynu aqri. waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan garanayaa fikrada aan idinku fikiro waana fikiro nabadeed oo ma aha kuwo musiibeed si aan ugu dambaystiina rajo idiin siiyo oo markaasaad ii yeeran doontaan waanad isoo baryi doontaan oo aniguna waan idin maqli doonaa oo waad idoondooni doontaan waanad heli doontaan markaad qalbigiina oo dhan iga doontaan. Amen. aayadahan waa aayado cajiiba oo na tusaayo ilaahay inuu qorshe wanaagsan inoo hayo. ilaahay inuu nabad iyo wanaag inoogu fikiro. ilaa wuxuu leeyahay aayadda 11 waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan garanayaa fikrada aan idinku fikiro. yacni sida aan idin arko iyo sida aan idinku fikiro waana fikiro nabadeedu leeyahay. nabad marka maxaa ka soo horjeeda? nabad waxaa ka soo horjeeda dagaal iyo colaad iyo marka wuxuu rabaa inuu na tuso ilaahay inuusan xumaan iyo dhibaato uusan inoogu fikiraynin. inuusan inoogu fikiraynin inuuna baabi'iyo. inuu col nala ahayn ilaahay. badanaaba waxa aan ilaah u aragnaa wax aad looga cabsado oo inoo fiiriyo inuu qaladkeena u fiirsado. يعني مر والبا إنه قلت كأنه أفير سنة أو كلية إنه نور دارسين يهاي وحقوا هاي سنة إله أو أرجنا قفنا لا دجال سنة كلام وعدو إنه جوه بوان كعب سنينا يعني إلهي إنه ما أبورن ما ركت إن أن كبغنا لف كمت ولف علتما ضد ولف علتما وسجايو إنه قلت بس uu ku qabto oo meesha u taagan yahay qalad yar ma sameeyaan aan kula xisaabtamaya ilmaha xataa marka ahayn sida noola soo koriyay waa u tahay oo annagana ilmeena u korinaynay waxa waaye ilaahay waxa ugu sawirnay inuu ilaah caraysan yahay oo only xisaab meel ula fadhiyo. ilaah ka cabso cabsida aanan ahayn reference waxa jiro cabsi jacayl laakiin aanan ahayn. marka ilaahay waa aabe. amen. ilaahay waa aabo kale wuxuuna noo raadiyaa xal nololeed. inuuna siiyo laakiin annaga waayo dadka ka cararaya marka runta way tusaale ahaan maxaa cararka keenayo kale waa dembiga keenayo ma aadin xaw markii ugu horeysay dambaabeen way ka carareen ilaahay way ka dhunteen sida kitaabku qoranaa. marka fikiradaas oo ilaahay inoogu fikiro iyo qorshaha uu inoo hayo waa qorshe wanaagsan waa fikra nabadeed. yani sida oo aabbo uu ilmihiisa ugu fikiro inay mustaqbal lahaadaan oo u wanaagsanaadaan waa ka sii daran yahay ilaahay. marka ilaahay wuxuu noo hayaa rajo inuu ina siiyo. aayadaaba sii dhahayso mugtahay wuxuu leeyahay fikra nabadeed oo ma aha kuwa masiibeed si aan ugu dambaystiina rajo idin siiyo. soo bini aadanka ilaahay wuxuu u hayo waa rajo iyo qorshe wanaagsan. bini aadanka marar badan asaa qorshe samaysta oo kuwa baahidiisa ku salaysan marka rajuu leeyahay inuu gaaro wanaag. laakiin only ilaah ayaa kasi kara waxa bini aadanka u wanaagsan because asaa sameeyey asaa og waxay ka samaysan yihiin iyo waxa u wanaagsan. marka ilaahay waxa uu nala rabo ma aha inuu nala caraysan yahay ama cadow nagu yahay. ilaahay qorshe wanaagsan oo nabadeed
inuu annaga na soo celiyo inuu annaga na siiyo nolol taasuu rabaa marka haddaan fiirino aayadda 12 wuxuu leedahay oo markaasaad ii yeeran doontaan waanad isoo baryi doontaan oo aniguna waan idin maqli doonaa markaan garanno ilaahay inuu wanaagsan yahay oo ilaah aan naga caraysnayn uu yahay oo qorshe wanaagsan wanaag noogu fikiro wanaag noo hayo markaas waan raadin karnaa oo u tagi karnaa qof aad meel ku kalsoon tahay inuu wax fiican ku hayo waa aadaysaa wax akartaa markaas waa ka doonan karnaa qorshaha wanaagsan uu noo hayo soo maahan haddaan fiirino aayadda 13 waxay leedahay oo waad i doondooni doontaan waanad i heli doontaan markaad qalbigiina oo dhan iga doontaan amiin so marka aad ka doonanaysid ilaa oo og tahay wanaag inuu kuu hayo qorshe wanaagsan kuu hayo waad raadinaysaa ilaahaas markaad doontidna ballanqaadkiisa ayaa waad heli doontaa haddaa qalbiga dhan ka raadisid marka adaan kuusoo gudbinayaa nuuro maxay tahay yani qorshaha ugu wanaagsan uu ilaah bini aadamku u hayn karo waa mahadsantahay hoob sida mahadsantahay rabbiga ku barakeeyo sida oo horta hadda noo sheegtay ama aayadaha ay sheegayaan ama aan dareemi karnaba ilaahay wuu wanaagsan yahay marka qofka wanaagsan aan wax wanaagsan ku hayo ama noo hayo anaga kitaabka quduuska waxaan noo akhrinayaa Timotheus 1 cutubka 2 aayadda 4 wuxuu leeyahay eebbu wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa ilaah wuxuu doonayaa in dadka oo dhan u badbaado oo ay runta kartaan horta doonistiisa mid ugu weyn oo annagana aan ugu baahi badannahay waxa waaye inuu eebbe ilaaheena na abuurtay uu doonayo inaan badbaadno iyo inaan runta garanno ilaahay waa mid wanaagsan marka aan ka hadlayno marka qorshaha ilaahay waa inaan maanka ku hayno qorshaha ilaahay ee wanaagsan mar walba waa inaan maanka ku hayno inuu asaga yahay abuuraheena kaasuu og waxa noo wanaagsan ilaahay wuu og yahay waxa ugu baahi badannahay taasoo badbaado sida aayadda ay sheegayso wuxuu doonayaa inaan badbaadno iyo in aan garanno runta marka taas waa midda ugu muhiimsan oo ilaahay uu nala rabo qorshaha wanaagsan uu noo hayo oo ugu muhiimsan horta waa taas ilaahay qorsho badan oo wanaagsan uu noo haya oo nolosheena wuxuu uu noo abuuray dhan waa wax wanaagsan waa wax farxadeed waa wax nabadeed ma aha dhibaato iyo qaxar iyo dunidan laakiin bini aadanka cararaya oo ilaah ka cararaya oo fikrad qalad ka haysta ayaa sababay marka adiga waxaa ka dhawaajisay aayadda akhrisay inay dadka dhan badbaadaan oo runta doonaya marka xoogaa ma noo sharaxi kartaa taas sida uu kitaabka quduuska uu sheegayo Yohana cutubka 3 aayadda 16 ayaa horta waxay sheegaysaa badbaadada ilaahay uu noo soo diray iyo sababta uu noogu soo diray iyo inay muhiim noo tahay waxa ugu muhiimsan inay tan tahay aayadda marka waxay leedahay cutubka 3 aayadda 16 ayaan idin akhrinayaa Yohana ilaah aayaddaas marka aayad caan waa la wada yaqaan dadka inta badan way yaqaaniin waxay leedahay waxayna dhahaan dadka qaarkood aayaddan waxay udub dhaxaadba u tahay kitaabka quduuska waxay leedahay marka ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda aayaddan waxay sheegaysaa inuu ilaahay noo soo diray ereygiisa kaasoo ah wiilkiisa keliya oo dunida dhashay waxa qof cag dunida soo dhigo oo ilaahay xaggiisa ka yimid masiixu ahaa dadka kale oo dhan waxay kasoo askulmeen aadanay ka wada yimaadeen ilaah ka soo baxay wax walba oo kale waxay kasoo farcameen aadanaha waxay kasoo wada farcameen aadan sidaan wada ognahay laakiin masiixa waa qofkii ugu horreeyey oo dunidan cag soo dhig oo ilaahay toos uga yimid ereyga ilaahay oo ilaahay kasoo baxay ilaahay marka wuxuu noogu soo diray jacayl uu noo qabo aayadda waxay leedahay intuu dunida jacayl uu qabay wuxuu usoo diray wiilkiis ayuu dunida usoo diray in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed taas ayaa badbaadada waayo ilaahay aayaddii hadda aan akhrinay Timotheus 1 cutubka 2 maxay leedahay ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa in dadka dhan badbaado oo ay runta gartaan runta ay garanayaan waa masiixa
waayo masiixa isla kitaabkan Yoxana cutubka 14 wuxuu noogu sheegaa inuu yahay runta, inuu asaga runta yahay, jidka iyo runta iyo nolosha inuu yahay. masiixa marka ilaahay wuxuu noogu soo diray marka ereygiisa inuu horta naga badbaadiyo ibliiska, gacanta ibliiska inuu naga badbaadiyo. waxaan ku badbaadi karno waa waa ilaahay ereygiisa kow, asagaan horta ku badbaadi karnaa. mar waxaan isweydiin karnaa maxaa naga badbaadinayaa ilaahay? hadda waa wada ognahay duni shar badanaa joognaa, waxaan jirkeenna waxa waaye jir dembi miran waaye, oo dadku dembiga iskama celin karaan, duni shar miranna waa ku noolnaa. ilaahay wuxuu naga badbaadinayaa. hadduu qofka isweydiin karo ilaahay muxuu iga badbaadinaa aniga, masiixa muxuu iga badbaadinaa, ereyga ilaahay muxuu ilaahay iigu soo diray, jacaylkaas uu ii qabo, waxaan iga badbaadinaa waa maxay? ilaahay wuxuu naga badbaadinayaa horta gacanta ibliisku naga badbaadinayaa, wuxuu naga badbaadinayaa dunida sharta miranah, wuxuu naga badbaadinayaa nafteenna oo runtii dembiile ah. waxa dhibaatada keenay dhanba waa annagoo ilaahay ka dheeraano. marka ilaahay marka wuxuu doonayaa marka inaan badbaadadaas u nimaadno. qorshaha ugu weyn oo noo hayana kaas waaye, kaasna waa qorshaha runta oo aayadda hadda noo aqrinaysay oo Yeremiyaha uu ilaahay leeyahay waxaan kugu fikiraa qorshe wanaagsan. asaas marka waxa oo ilaahay qorshihiisa sidaan ku aragna kitaabka quduuska waa qorshahan uu bini aadanka dhan uu rabo inuu badbaado, runta ay gartaan, oo badbaadadaasna ay tahay jacayl asaga ka yimid oo dhahay sidaasuu adduunka u jeclaaday ilaahay inuu na siiyey masiixa in qof walboo rumaystaa uunan lumin laakiin uu ku badbaado. marka aayadda ku xigta waxay leedahay inoo akhri bal. aayadda ku xigta marka waxay leedahay aayadda 17 isla cutubkaas Yoxana 3 waxay leedahay ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunida ku badbaado isaga. waa hadiyad. uma soo dirin inuu ku cadeeyo dembigooda oo dhaho dembiilayaalati inuu xukumo, uma soo dirin, wuxuu u soo diray inuu ka badbaadiyo dembigooda. because sababtoo horey adduunka loo aayadda kusii xigtaa waxay leedahay horaaba dadkii u xukunaayeen, waayo xukunka waxa waaye markii horeba dhacaybo. annaga marka waxaan ku dhalanayba duni xukuman oo shar miran dembiilayaalaan ahayn, horaan ba u xukumaneen. marka ilaahay wuxuu wiilka uguma soo dirin inuu xukumo, laakiin wuxuu u soo diray inay ku badbaado dunida. waxay soo xasuusinaysaa aayadan ku jirta buugga falimaha rusulada cutubka 4 aayadda 12 leedahay mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno, kaasoona ah magaca masiixa. qorshe wanaagsan oo ilaahay noo haya, asaaska qorshaha wanaagsan oo noo hayana waa masiixa, kadibna wax walboo wanaagsan ilaahay ku jiraan, qorshihiisay ku jiraan. markaan qorshahaas galno oo aan xataa Bible wuxuu leeyahay qof hadduu masiixa ku jiro waa abuur cusub oo waxaana la siiyey chance kale oo nolol ah. qorshaheena dhan waxa ugu muhiimsan waa hadiyadaas ilaahay na siiyey oo ah badbaadada. marka ilaahay nooguma fikiro dagaal, xumaan, inaan sii dhacno ama inuu cadaab iyo xisaab iyo waxaas dhan ma aha. fikradiisa waa wanaag inaan anaga asaga u imaano, asaga la joogno, asaga la noolaano weligeed. aabbo kale naxariistiisa waa ilaahay jacayl waayo la leeyahay kitaabka quduuska, jacayl magaciisa jacayl waayo, jacaylka dhan wuxuu ka soo askumay ilaahay. waa mahadsantahay, aad u mahadsantahay. ilaahay sidaa sheegtay asagaana abuuray, asaga keliya ayaana badbaadin karo. wuuna raadinayaa asaga wuxuu leeyahay ii imaado kale, wax kalena ma badbaadin karaan, camaladeena ma badbaadin karaan, diin aan haysano nama badbaadin karto, firqa aan ka tirsanahay nama badbaadin karto, wanaageena nama badbaadin karo, shakhsiyadeena nama badbaadin karto, aqoonteena nama badbaadin karto, da'deena nama badbaadin karto, wadanka u dhalanay iyo midabkeenaba nama badbaadin karaan iyo waxaas oo dhan. kaliya waxaana badbaadin karo abuurahana abuurtay, ilaahana abuurtay. ilaahayna badbaadadii wuuba noo soo diray. ilaahay badbaadadiisa wuxuu noo soo diray ereygiisa uu annaga naga abuuray ayuu dunida u soo diray. marka dhegeystayaal maantay barnaamijkeena intaas aan kusoo keenaynaa. waa ku mahadsantihiin waqtigiina qaaligaana siiseen. haddii aad talo noo haysaan ama aad su-aal qabtaan ama waxyaabo kale aad noo haysaan, waxaa nagala soo xiriiri kartaan emailkeena abuurcusub.gmail
@gmail.com walaalayaal aad iyo aad ugu mahadsantihiin nimcada masiixa idinla jirto كل kulligiin